salaadiintu hadalka ay yiraahdeen cid baan u dhaxaynay waxay ahayd madaxweynaha iyo xisbigii xukuumadda uu hogaaminayo iyo axsaabtii mucaaradka ahayd wixii aan ku dhex joognayna waanu ku celinay jawaabtoodii iyaguna way sheegeen ismaanu lahayn war dan baa laydinka sugayaa laakiin haddiiba ay ka fursan weydo su-aasha aadna weydiiseen runtii waxaanu ku dadaalnay in laysu soo dhoweeyo oo tenshankii kacsanaa aad loo dejiyo layskula soo dhoweeyo dhinacyadii marka aynu odhan karaynay waa dadka stakeholderska ahaa ama dani ka dhaxaysay tallaabooyin fiican oo runtii markii hore la qaaday way jireen waxaanu ku guulaysanay innu soo hor fadhiisinno waxaanu ku guulaysanay in la sii daayo maxaabiistii siyaasadeeda xidhnayd iyagana in la sii daaya baanu ku guulaysanay laakiin nasiib darro markii u dambaysay waxaa la istaagay laba daraf oo aad u yar kala fog labadaa daraf oo ahaa runtii qolada axsaabta mucaaradka ah oo markii hore aanu ka codsannay inay si toosa iyagu u wada hadlaan way ka cudurdaarteen waxayna sheegeen inaanay diyaar u ahayn maadaama ay muddo badan soo wada hadlayeen inay iyagu toos foolka fool u wada hadlaan ay u baahan yihiin mediation iyo in loo dhexeeyo xaggii xukuumaddana madaxweynihii arrintaa iyasna way ku yar adkaatay wuxuu nagu yidhi isaguna waxa weeye arrintaa iyada ah xagga sharcigan ka taagnahay marka qoladii mucaaradka ahayd waxay noo keeneen dacwadoodii qoraala waxayna sheegeen inay kalsoonidii nagu wareejiyeen laakiin madaxweynuhu arrintaa wuu ka cudurdaarto wuxuu sheegay in uu arrintaa iyada ah sharciga ka marayo halkaa markii ay soo gaadhay aanu aragnay inaanan wejigii isu soo dhoweyn karayna qolo walba waxaanu ku celinay uun inaanaan annaga laftigayaguna ku dhex dhimannin iyaga laftigoodana aanaan isku dilin aanu hawshii markaa annagu xoogaha dib uga guranno aniga iyo gudoomiyihii golaha guurtidu intaasay ahayd wax kaloo dhibaatina ma jirin markii aanu arrinta ka hadallayna oo u sheegnay qolo walbana iyaguna saxaafadda ay la hadleen waxaan warku intaasuu ku koobnaay meelka wax la hor sii qodqoda ma ayan jirin Soomaalidu waxay tiraahaa geedka la garab joogsadaa laakiin hadalka lama garab joogsado guddigii dhexdhexaadinayay ayaad adiguna ku jirtay iyo gudoomiyihii golaha guurtida labadii dhinaca khaldan inaan labadiiba ma saxsana bulshadiina taasaydi ka sugaysaa iyaad farta ku fiiqaysaa garba baanu qaadin gartu markaad qaadde aad labada xukun rido ee xukunkaaga cididaalidaalay cidaas way khaldan tahay laakiin inta aan kuu sheegay hadalku koobaya